السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمان أصحابتي إذا إيجا لسعطو قيبها كلا دوان برها برشدة ومركله إيا سويدن إيا مانتا برنامج كيني سويدن إيا مانتا قدبدا أن كسو قدان دونو وحا كميدا Kan vi sänka också på mat? Vi kommer att halvera matmomsen för att underlätta för svenska familjer. دولدا سويدن oo qorsheynayso in la dhimo canshuurta cuntada laga bilaabo sanadka 2026 bishii Abriil ayaa markaasi dowladda Sweden waxa ay rabaan inay dhimaan lacagta canshuurta markaasi ee cuntadu gaar ahaan canshuurta loo yaqaan momsiga ujeedkuna uu yahay in dadku ay helaan cunto raqiis ah dad khubaro ah ayaa markaasi waxa ay ka digeen in markaasi dukaamada waaweyn si buuxda ah ee markaasi qiimaha u dhimaan isla markaasina la hubiyo sidoo kalena dawladdu waxa ay markaasi sameysay koox markaasi qiimeyn doonto arintaasi si loo hubiyo inay shacabku ka faa'iideystaan isla markaasina ay helaan cunto raqiis ah qodobada sida aadka loo hadalhayo dalkan Sweden waxa kamid ah xafiiska shaqada ee loo yaqaan Arbetsförmedlingen ayaa dabcan waxa ay sameeyeen baaritaankaas oo quseeya dadka markaasi ka rajisgareysan suuqa shaqada waliba si gaar ah wuxuu u quseeyay dadka ee rajisgareysan shaqo la'aan isla markaasina wadanka iskaga baxo ee aad wadamada kale kuwaas oo ka soo gala website-ka Arbetsförmedlingen ama xafiiska shaqada iyagoo markaasi wadamadaas kale ay joogaan baaritaankan ayaa waxa la sameeyay markaasi bisha June ee markaasi xilliga samarka ay ku aadaneed waxaana la ogaaday in ka badan 4,000 oo qof in lagu arkay inay website-ka markaasi suuqa shaqada ay ka soo galeen wadanka dibadiisa dadkan ayaa dabcan waxa la sameyn doonaa in macnaha baaritaan lagu sameeyo iyagoo dad isugu jiro kuwa markaasi qaato oo kaaso iyo waliba sidoo kalena lacagta markaasi shaqo la'aanta ay activate-ka baaritaanka rasmiga ayaa dabcan hadda bilowday natiijada ka soo baxa baaritaankuna waxa ay sheegeen inay dib ka soo gudbin doonaan sidoo kale qodobada sida aadka loo hadalhayo waxa kamid ah in dawladda Sweden ay markaasi soo bandhigtay miisaaniyadda xilliga guga iyadoo markaasi dunida oo idil ay ka jirto xaalad dhaqaalo iyo amni oo markaasi aan deganayn dabcan dawladdu waxa ay sheegtay inay kordhin doonto markaasi qarashaadka dhimista dib u dhiska guryaha sidoo kale waxa ay sheegtay inay rabaan 300 milyan in oo dheeraad ah lagu maalgeliyo difaaca dalka sidoo kale wasiirka maaliyadda ayaa markaasi waxay sheegtay in Sweden ay jirto xilli aan cadeen sababta la xiriirto ee dagaalka canshuuraha iyo waliba amniga Yurub oo idil qodobka sida aadka loo hadalhayay isla markaasina asxaab badan ay si gooni ah soo weydiiyeen waxa kamid ah qodobka Fritidskortka ee kaarka madadaalada dhammaan carruurta u dhaxayso da'dooda 8 ilaa 16 sano waxay heli doonaan lacag kaalmo ah oo gaarayso 500 oo koron cunugiiba laga bilaabo 15ka September ee sanadka aan ku jirno 2025 carruurtaas aan u sheegay da'da u dhaxayso 8 ilaa 16 sano lacagtaasina waxay u isticmaali doonaan arrimaha madadaalada ama fritiska arrimaha la xiriiro sidoo kalena ay kaga qayb qaataan ciyaaraha markaasi hadii naqal lahayd kubad ama basketball kale si ay markaasi dhaqaalaha xubinnimadu ay ugu bixiyaan ayay u isticmaali doonaan lacagahan kaalmada ah dabcan lacaguhu waxay noqon doonaan lacago qaab electronic ah oo qofku marka siyaabo kala duwan ugu faa'iideysan karo sidoo kale hadii ay jiraan waalid markaasi qaato kaalmada guriga ee loo yaqaan Bosta Bidrag cunugi walba markaasi wuxuu heli doonaa lacag u dhiganta 2,000 oo koron lacagtaasi oo marka laga hadlayo ay tahay sanadkii hal mar in cunuga dabcan la siinayo si ay markaasi ugu faa'iideystaan activity-yada ay waliba ay u helaan firfircooni dheeraad ah dabcan arrimahaas oo idil informationada ku saabsan iyo su'aalaha dabcan qof walba isweydiin karo waxa qaybta hoos ku soo qori doonaa website-ka uu qofku gali karo dabcan waliba waxaad helaysaa iyadoo latest-ka ah oo maaragtay aad u fudud su'aalaha uu qofka marka u baahan yahay jawaabahooda iyo waliba qaabka uu arintaasi ugu faa'iideysan karo website-kan hoos aan ku soo qori doona gal wixii information ama warbixin dheer ah halkaas ka akhriso waxaan rajeynayaa in dad badan markaas waalidiin ah ay ka faa'iideystaan arintan ee loogu talagalay dhalaanka iyo carruurta qodobkeena u dambeeya ee Sweden ee maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Labubu dabcan Labubu waxa laga yaabaa inaad qaarkiin hore u aragteen ama uu hore idin ka soo horbaxay adigoo isticmaalaya gaar ahaan baraha bulshada dabcan bombilahan yar aad u jeedin Labubu wuxuu markaasi qabsaday caalamka idil
gaar ahaan dalka Sweden si aad ayuu u saameeyay heer wuxuu gaaray dalka Sweden laga mamnuuco in iskuulka ay usoo qaataan carruurta maadaama ay markaasi uu noqday bombilo cunug walba oo guriga jooga in uu markaasi dabcan haysto haddaba adiga markii ugu horreysay Labubu aragtay goormay ahayd sidoo kale maxay tahay waxyaabaha aad ka aaminsan tahay Labubu igula wadaag qaybta commentiga intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijkeena Sweden iyo maanta inta aan ku kulmeyno muuqaalkeena xigo waa walaalkeen Cali Suluub idin leh sida iyo nabadgelya muuqaalka shargaray la garay sidoo kale asxaabta la wadaag Assalamu alaikum.